wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa maanta kormeer ku soo maray taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland kormeerkaasi oo ku saabsanaa sidii ay ciidamadu ay u xoojin lahaayeen amniga ugu horeyn waxa halkaasi faahfaahin ka siiyay hawlgallada ay fuliyaan ciidamada amnigu taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland Cabdillaahi Fadal Iimaan iyadoo guud ahaan ciidanka booliisku ay heegan u yihiin nabadgelyada qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland ay ugu hidman yihiin ay mas'uulka ugu yihiin kuma koobna ciidanka caasimada inta qura waxa weeye hawlihii kala barbaahaya waxa weeye markaas saacad wasiir waxaanu diyaar u nahay inaanu xoojino amniga oo cid kasta oo isku dayda inay nabadgelyada carqaladayso talaabo sharciga waafaqsan iyadoo sharciga lagu xadgudbayn ay ciidanka booliisku qabtaan waxaan halkan uga faa'iideysanayaa kooxaha dhalinyarada ee had iyo jeer rabshadaha sameeya ee kooxaha isu dila oo in dhaweyd hadalkoodu yaraaday markii in badan laga xidhay waxana laga wacyigeliyay in ciidanka booliisku ay ku amran yihiin inay qabtaan cid kasta oo nabadgelyada wax u dhimasa haday dhalinyarada tahay iyo cid kaleba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku amaanay hawsha ballaaran ay qaranka u hayaan iyaga oo mar walba dadaal ugu jira sidii ay mar walba uga hortagi lahaayeen waxa liddi ku ah jiritaanka qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan marka hore idinku hambalyeeynaa intii qarankanu jiray ama booliiska Soomaaliland la asaasay inuu hantay deganaanshaha iyo xasiloonida qaranka Soomaaliland oo runtii aad tihiin ragga qarankanu ku hurdo marka laga eego dhinaca gudaha oo aan idinku ammaanaya sida uga soo baxdeen kaalimihiinii waqtiyadii adkaa ee faraha badnaa ay soo daba socday waxaynu u baahannahay intaynu guusha shacabkeena gaarsiinayno haddii alla yiraahdo sida ugu dhabar adeegi jirteen dhibaatada dambiilayaasha sida uga adkaa jirteen qaswadayaasha sida u fariisin jirteen sida qaranka muxuu ahaayay nabadgelyadiisa u ilaalin jirteen inaa maantana u ilaalisaan maadaama aynu soo ururnayno dawladnimadii iyo qarannimadii iyo ictiraafkii qarankanu waa Xamse Qurbaani Jacawil Cabdi Kayn telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa